culummada wakiilada ama guddoomiyaasha ururada tirada badan halka loogu dhawaaqay oo caawa laftirkeedu faraxan weyn ah inaan aragno dulmidiid iyo onolf WSLF oo soo socota iyaduna oo isgarab fadhiya intaasoo isgarab fadhida calanka meesha yaalaana uu yahay calankii ka tarjumaya midnimada Soomaaliya horta laftirkeeda ayaa kamid ah waxyaalaha farax weyn noo ah oo caawa halkan u joogno inkastoo aan jeclaan lahaa in mikrofoonka la dheereeyo dadku caawa ay farxooda iyo shucuurtooda in badan ka hadlaan haddana waa la soo koobay oo waxaan kugu bishaareeyay inay jiri doonto xaflad kale oo weyn oo halkaas aan balyadeena ka soo jeedin doono inta kadib waxaan aniga la ii wakiishay inaan ganacsiga u hadlo laakiin ganacsiga ka hor waxaa meesha ku jirta inaan hambalyada madaxweynaha iyo deegaanku wuxuu yahay inaan wax ka taabto madaxweynuhu ay dambeeyo waa in la wada garanayo oo anuguna muddooyinkii dhowrkii sano ugu dambeysay aan arrimihiisa aad ula socday laakiin waxaan rabaa inaan ku hormaro gobolkan Soomaalida ee Ethiopia waa gobolka horta ugu saameynta badan shanta Soomaaliyeed sababtoo gobolku wuxuu salka ku hayaa diintii oo Soomaalida marka la yiraahdo waa maaragtay waa dad ku midaysan diin iyo dhaqan iyo af intaba gobolkan ayaa aas u ah ama ay ka soo burqan jirtay maaragtay haday tahay af oo gabaygu saldhig u ahaa haday tahay dhaqan wanaag iyo maaragtay akhlaaqda iyo asluubta dhaqanka Soomaaliya lagu yaqaano iyo haday tahay diinta intaba gobolka shanta Soomaaliya aas ku ahaa inuu wanaagsanaado oo qofka Soomaaliga ah meesha jooga xorriyad helo waxay ahayd wax Soomaali ku wada taamaysi maanta ay guusheeda muuqato oo aad iyo aad aan u soo dhaweynayno kuna faraxsanahay isbedel duufaan isbedeleed ayaa gobolka ka dhacday waxay hadda siyaasiyiintu ugu yeeraan geopolitics isbedelkii xawligiisii horta Ethiopia ku dhuftay Ethiopiana dadka inay ka faa'iideen hadda ay muuqato waa kililka Soomaalida ama Somali state inay duufaantii si nabada ay ku timid ay ka faa'iidaan halka markay marayso wax loo baahan yahay in marka isbedeladan kala caalamka ay ka dhacaan rabshado iyo maaragtay dadku laftirkooda aan isbedelka u diyaarsanayn oo shucuubtu markay dhibaato badan ku soo jirtay isbedelka uma diyaarsana marka way ka naxsan yihiin oo waxay filayaan maaragtay wixii hore wax ka darmiya iman doona isbedelka wadi badan ayaa marka in la dul qaato khilaafaadka maaragtay la yareeyo madaxda hadda la doortay loo duceeyo midnimada sida hadda caawl isku ag fadhiyo in laga dhabeeyo marka banaanka loo baxo ummadihiina la hadlay in midnimadaas Soomaalinimada in laga dhabeeyo inta kadib Mustafa waa u ducaynaynaa maaragtay amaan iyo asaga badido ninkii amaano ama la xirayaaba ama maaragtay xil la siin maayo marka amaanta halka noo taalo madaxdii hore qaateen laakiin wax qabad ayaa maaragtay maaragtay wax qabadkiisii wixii hore uu qabtay anagu aan garanaynaa maaragtay hadda xilal hadda oo kililka hadda ma hayn laakiin dadka u soo halgamay oo dhibka uu soo taabtay waa nin aqoon-yahana waa nin deegaanka hore u yaqaanay waa nin maaragtay karti leh waa nin dhib ku soo dhacay laftirkiisa oo dareemi kara maaragtay gobolkaas wixii ka dhacay saas ay tahay marka nasiib ayuu Ilaahay u siiyay gobolka inuu nin wacaas kala oo hadda hogaamiye dhalinyaro taas baan horta waan hambalyeeynaa waxna Ilaahay kula garab galo asaguna maaragtay waxa sirada badan laga rajeynayo Soomaaliya meel walba maanta ay ka rajeynayso inay maaragtay uu ka soo baxo isla xisaabtan kuna maaragtay cadaalad uu ku dhisnaado tanaasulka iyo maaragtay iscafiska marka dhibaatooyinku dhacaan waxa looga baxay iscafis in dadkii iscafiyaan sababta heer waxa jirta hadii la yiraahdo maaragtay cadaaladu sida soo Afrika ka dhacdo kale in shakhsi la isku cafiyo maaragtay ba markaan oo kale muhiima si asmadan loo wada dhaafo inta kadib ganacsiga horta xuduud ma leh caalam ahaan marka Soomaaliya la yiraahdana xuduud muusan ahaan jirin laakiin baryahan dambe meesha ugu dhib badan oo qofka Soomaaliga uu tago si xor ganacsigiisa u geeyo waxay ahayd meeshaan maar Somali state maanta magaceeda saxda lagu soo celiyay bay ahayd in badan ganacsigu meel walba uu joogo uu ku hanqal taagay meesha population badan baa jooga maaragtay hadii ka Ethiopia la yiraahdo hadii ka Soomaaliyeed la yiraahdo marka ganacsigu in badan buu meesha u hanqal taagay inuu tago laakiin albaabada ayaa ka xirnaa waxaan rajaynaynaa codsanayna horta in ganacsiga albaabada loo furo ganacsigu
siyaasaddu la nool yahay siyaasadda meesha ka jirta ayuu la nool yahay siyaasaddu hadday wanaagsanaato ganacsi ayaa wanaagsanana ganacsigaas waa dalka iyo dadkuna ka hormaraan marka anoo soo koobaya waxaan rajeynaa in ganacsiga xuduudda loo furo oo maaragtay tariifka ama canshuuraha la saaraya oo sidii hore laga bedelo shatiyaasha la furo maaragtay dadka si siman loo soo dhaweeyo haddii ilaahay kuu roon yahay ummadduna ay ku dhigrato inay deegaankeedii ay maal gashato khaasatan reer Dooxa annaka dhowr mar ayaan hadda ka hor damcan inaad tagno rag la yiri meesha soo indhaynayna la yiri qaarkood isla markiiba lagu tuuro liinta jeelka ka cabeen marka waxa codsanayna inay maaragtay ama aan dareemayna in isbedel weyn dhacay oo lagu wada faraxsan yahay oo dhinac walbana oo ganacsigu hormuud u yahay oo maaragtay asaaska waxbarashadii diintii iyo akhlaaqdii in akhlaaqda dadka la soo celiyo in maaragtay Soomaalinimadii sida hadda madaxda ku dhawaaqeen la soo celiyo intaas ummadda marka hore deeqda وبلا توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته